السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي وعشر كيني كوي تومناد وقيبينتا عاو حان قادم دونا هدي لها إدمو لبقد الله قيبين يو أفرقد عشر كي وحن وسع قاب تحناه عشر كي هذا كهري كان وحن كو قادناي لبقد الله قيبين يصدح قد هذا وحن تصالياشين نقول قرن أفر تصالي ويواسوكمني tusaalaha koodu wuxuu noqonayaa 3225 oo loo qaybiyay 15 kuwan gudaha ku jira waxaan idhi waa la qaybsadayaashii waa lacagtii ama hantidii kale ee la qaybsanayay ba ku sheegnaa halkaana waxaan ku sheegnay cidii wax qaybsanaysa Soomaa dadkii wax qaybsanayay ayaan ku sheegnaa marka waxaan idhi hadii 15 qof ay qaybsanayaan hanti ah 3225 mid walba intee qaadanaya su'aashan ka doonay taas weeye marka waxaan dhahaynaa 15 tiro lagu dhufto 32 keenaysa ma jidhaa may weeye laakiin tirada ugu dhow waxa ugu dhow 15 oo laba lagu dhuftay ugu dhow oo keenaysa 30 bay keenaysa marka taas baan saaraynaa taas baa wax noqonaysa jawaabta mataqaanaa ugu soo dhow binoqon ka dhaxaye 32 oo 30 ma kala jarnaa markaas calaamada ka jartaa muujinaa laba eber laga jarintay weeye waa labo 30 waa qornashay inta laba lagu 30 baan waa qornay waxa dhaynaa marka laba laga jaray maxay noqonaysaa eber waa labo saddex laga jarayna waa eber weey haya marka maxaan haraagigu laba noqdo laakiin maxaan soo dejinaa tirada ku xigta baa soo dejinaa oo ah laba soo ku xigta Soomaan labada soo deji okay marka waxaan ka doonayaa 15 tiro lagu dhufto oo 22 keenaysa ma jidhaa may laakiin tirada ugu soo dhow waxa ugu soo dhow hal baa ugu dhow هي 15 هل لو intee weeye waa 15 calaamada ka jartaa muujinaa haye markaas sameeyna xadayna laba shan kama jaranto sababta tirada yar baa koreeya sida darteed waxaan sameeynaa tirada kore baan ka soo qaadanaa hal waxay noqonaysaa 12 shan laga jaray intee soo hadha 7 soo hadha halkaana hal baa igu harayna hal baa ka qaatay hal laga jaray wuxuu noqonayaa eber buu noqonayaa marka haraagu wuxuu noqday 7 noqdo shan soo deji marka toddobaad shan buu noqdo tiro markii 15 lagu dhufto 75 keenaysa ma jidhaa waan baaraynaa 15 hadii lagu dhufto 5 intee weeye taasaan ka baaraynaa ana waxaan baaraynaa hadii tiro markii 15 lagu dhufto 75 keenaysa ma jidhaa 5 lagu dhufto intee weeye waa 25 shantii qarlaba waataa 5 hal lagu dhufto intee weeye waa 5 labadii ku dar 7 marka 75 taas tiradaas keenaysa 5 baa u saarnay 75 buu noqdo calaamada maxaa sameeynaa calaamada ka jartaa sameeynaa maxay noqotay 5 laga jiro eber 7 laga jirayna waa eber saas ku soo baxaysa marka daarat ina hubisina 215 waxa ku dhufanaysaa 15 baa ku dhufanaysaa jawaabtana waxay ku soo noqonaysaa intaas bay ku soo baxaysaa waa hubin ka dhaa hadda waxaan noo qoray 2452 oo loo qabiyo 10 macna waa 10 qof oo qaybsanaya lacag inta leeg ama hanti inta leeg waxay doontaan noqotay bay qaybsanayaan waxaan isweydiinaa tiro markii 10 lagu dhufto oo 24 keenaysa ma jidhaa may laakiin tirada ugu dhow waxa ugu dhow 10 oo laba lagu dhuftay baa waxay keenaysaa 20 waa sax tiradaas ugu dhow marka maxaa sameeynaa calaamada ka jartaa muujinaa 4 eber laga jaray waa 4 laba laga jarayna waa eber maxaa soo dejinaa tirada ku xigta oo ah 5 baa soo dejinaa هي تيورا ممكن طبعا لو قلت فتو أو أفرتن يشين كين سمعت ده ماي لكن ترى قدو وحا قدو ترى قدو وحوي وطبعا أفر لو قلتي صح هي طبعا أفر لو قلت أفر إبر كله هو إبر أفر هل لو قلتنا وأفر يعني كلا شرنا هي شن إبر لقشرة وشنتي أفر لقشرة وإبرتي هي واحد سودنا ترى كوسي حتى إن شنت وسود كنا سمعين ترى كوحت الله وسود كنا ترى ممكن طبعا لو قلت ثلاثين أفر كين سمعت أنا كنت الله ميت ده أرض يوم ardayguna waxa muhiim ah ma taqaan inuu xifdisan yahay marka hore jadwalka ma taqaan isku dhufashada inuu si fiican xifdisan yahay waa muhiim ah sababta xisaabaadka dhan u fududaanaysa inuu diqadiba sheego laakiin intuu markaas tiro ku dhufuray tiro waqtiga kaga dhacay intuu dhaay 10 laba lagu dhufto 20 10 lagu dhufto 3 waa 30 10 lagu dhufto 4 40 10 5 lagu dhufto waa 50 intuu dhaay saa u wareeray waqti noqonaysa tirada waxay noqonaysaa 5 bi noqonaysaa 5 eber lagu dhufto waa eber 5 hal lagu dhufto waa 5 sababta haddaan 6 ku dhufano 10 6 lagu dhufto 60 bay noqonaysaa way ka badnaanaysaa tiro ka badanna lama doonayo laba eber laga jiro waa 2 5 laga jirayna waa eber saas ku soo bas haraagu muxuu noqonayaa labo noqonayaa haraagu hadhow aan marka aan mataqaanaa hubino
حدهنا ترى كره بوحن كله فنا طبعا هدول هرايا كدرنا لو بقولي أفرتيشن بوحن كله فنا طبعا إبر كده كله عويس كإبر دي إبر شان كله فو إبر أفر لقول تو إبر لبلا لقول تو إبر هي هل شان لقول تو شان هل أفر لقول تو أفر هل لبلا لقول تو لبلا هي سودتشن إبر على مدى بلاسك والكان كشرت معه ولقول صدرية إبر تا إبر شان هذا شانتي أفر تسودتشي يلا بلا لو كوني أفر بقولي كنتم بيتي لكن ما حكوا صدرنا هراي ولا بلا أنا كدر مرك إبر لبلا قدر ولا شانت سودتشي أفر تسودتشي لبلا سودتشي لو كوني أفر بقول كنتم يلا شاكو ويس كنت صاحبي ساكوته هي مدة كوسي حتى وحويه سجال كوني بقول زيت لو لو قيبي سجاشن حسابها سوق قيبينا marka waxaan idhi hadii laba god banaanka yaalo laba god oo soo qabanaa Soomahan hay waa soo qaban saashi ko iyo saashi ma soo qaybina hay tira markii saashi lagu dhuto saashi ko keenisa ma jidhamay laakiin tirada ugu dhow hal ba ugu dhow hay hal ba u saarna hal eber ku dhufo waa eber ma tiradan halkan saadid ba ku dhufanaysa hal eber lagu dhuto waa eber hal sagaal lagu dhuftana waa sagaal saas dhahaysa macna waa calaamada ka jirba muujinaysa hal eber laga jiro waa halkii sagaal laga jirana waa eber maxaa soo dejinaa 8 ba soo dejinaa لكن ما كان سديد سودتش إنه محنا قطعي سديتون سغاشنا دي سغاشن باوين صوتها سغاشن قف سديد طمان ما تغانا العجها ما قيب سنكران تشجع بيجلسها مركا waxaan sameynaa eber ba u saarnaa markaan eber ba u saarnaa maxaa soo dejinaa tirada ku xigta oo labada soo dejinaa labo maxay noqotay 182 noqoto markaas ba waxaan sameynaa xadhaynaa tira markii 9 lagu dhufto 182 keenaysa ma jibdaa may laakiin tirada u soo dhow waxa u dhow labo soo markaan 20 laba ku dhufno 9 waxa soo baxa fiiriga tirada u dhow 182 u dhow baa iimaanaysa hay xadhaynaa laba lagu dhufto eber waa intee weeye waa eber laba 8 ku dhufana laba 9 ku dhufana waa 18 maxaa soo baxay 180 ma soo baxay halkan waxaan u yaalo 182 laakiin haddaan 3 ku dhufano 270 buu noqonaya way ka badan tahay lama rabo hay laba eber soo deji waa laba macnaa eber ka jawaa labadii 8 laga jirna waa eber hal laga jirana waa eber haraagu muxuu noqday laba noqda haddaan hubino 102 oo lagu dhuftay 9 eber laba ku dhufo eber laba ku dhufo eber laba eber ku dhufo eber hal lagu dhufo eber 9 laba lagu dhuftay intee way waa 8 qor hal baa wataa 9 eber ku dhufo eberkii markaas maxaa qoranaysaa tirada wadatay baa qoranaysaa oo halkii ah hay 9 hal lagu dhuftay waa 9 aan ku isku darno marka eber soo deji eber 8 ku dar waa 8 eber hal lagu dar waa halkii 9 kana soo deji 9180 noqotay laakiin halkan waxaa noo taalay 9182 tira maqan laba maqan Soomaan labadii waa tan haraagi halka ahaa haraagi xisaabta haraabo la leeyahay labadii ku dar dhanka midig ba marka ku diraysid dhankaas ka bilaabaysaa calaamad ku dar waa dhahaysaa eber laba lagu dar waa labo intaana soo dejiyay waxay noqotay 9182 jawaabtu soo baxda 9182 iyo 9182 sidaas ba u hubinaysaa xisaabtana badan adoon hubin ma taqaan ha ka gudbin xisaabta kale ha u gudbin halkan waxaan noo taalaa 5808 loo qeybay 27 qof oo qaybsanaysa hanti inta la eg mid walba intee qaadanaya marka hore waxaan dhahaynaa laba god banaanka noo taalaa saadatii laba god baan soo qaadanaa labada god ba u qeybayna marka hore hay tiro waxa ay baadhaan 20 marka lagu dhufto 18 keenaysa tiro marka 20 lagu dhufto 18 keenaysa ma jidho laakiin tirada u dhow waxa u dhow 27 oo laba lagu dhuftay baa waxay keenaysaa macallin konti afar keenaysa laba 7 ku dhufo waa 14 qoro waxa wataa hal ba wataa taas ila soco halka hal qaadashadeen ilaawo hal qaadashada ardayda way ilaawo inta badan hal ba wataa hay laba 7 lagu dhuftay intee weeye waa 4 halkii ku dar waa 5 waxay noqotay konton 4 bay noqotay hay 8 laga jiro intee weeye waa 4 5 laga jirana waa eber tirada ku xigta 40 eberka isoo deji marka soo dejida 40 iyo 40 baa badan hay tirada u dhow maxay noqonaysaa markeen 27 tiro ku dhufto 40 ay keenaysaa ma wajidaba laakiin tirada ugu soo dhow hal ba ugu soo dhow sababtoo ah haddaan laba ku dhufto 54 buu noqonaya wuu ka badan yahay 54 baa badan lama rabo marka tiradan tiro keenaysa dad weydid waxa la imaanaysa tirada ugu dhow marka hal ba ugu dhow 27 haddaan hal ku dhufo maxaa soo baxay 27 soo baxaysa marka maxaa sameeynaa waa la kala jaraya eber 7 laga jaray eberku waa yar yahay Soomaan saadada hal qaadasha sameeyay waxa dhaysaa 10 afarta halka soo qaado 10 7 laga jaray intee weeye waa 3 halka maxay ugu haray 3 bay ugu harin hal ba ka soo qaatay 3 laba laga jarayna waa hal weeye 13
saddex toban weeye maxaa soo dejinaa tirada ku xigta soo dejinaa oo ah 8 marka arday waxay sheegtaa tira marka 27 lagu dhufto 138 keenaysa aan baarno marka 27 markaan 2 ku dhufno 54 soo baxday 27 marka 5 ku dhufo marka 5 7 lagu dhuftay waa 35 qor 3 wadataa tan iska qaabkan ataan dheh 27 lagu dhuftay 5 5 7 lagu dhufto waa 35 qor 3 wadataa 5 2 lagu dhufto waa 10 3 ku dar 135 tiradan ba u dhow haddaan 6 ku dhufan way ka badnaanaysaa marka 5 u saar 135 bay noqoto kala jar marka 8 laga jantee way waa 3 3 laga jarna waa eber hal laga jarna waa eber haraagu muxuu noqday haraagi 3 buu noqday haya marka maxaa sameeynaa markan waa hubinta bilaabaynaa marka waxa dhaynaa tirada kore ba waxaan ku dhufanaa 27 215 ba waxaan ku dhufanaa 27 7 lagu dhufantee way waa 35 shantii qoro 3 ba wadataa 7 hal lagu dhufto 7 way 3 ku dar waa 10 eberkii qoro hal ba wadataa 7 laba lagu dhufantee way waa 14 hal ku dar 15 هي لبضان لبضان كل فنا لبضان أنت وكل عيسى لبضان شن لقولوا تنتوي وطبعا إبرك وقرا هالبواتا هي لبضان لقولوا توا لبضان هل قدر صدق لبضان لقولوا تنو أفر هي أنس قدر رمرك شن تسودشي إبرتن سودشي شن صدق قدر واسديد هل أفر لقدرنا وشن هي حرام هيسنا ها وهيسنا حرام محوها صدق بوها هي صدق دي حرام قدر 5 3 lagu darantee way waa 8 eberkana soo deji 8 soo deji 5 soo deji maxay soo baxay jawaabtu 5808 halka maxaa noo taalay 5808 baa noo taalay marka xisaabta badana waxay muhiim u tahay in mataqana hubinta ka wada hubinta waxay muhiim u tahay in jawaabtaada ay noqoto jawaab ah hubtid suusan imtixaanku mataqana aad dhibcihi ka filisay kuwa ka yar aad u keenay marka waxa badana sameeysaa inaad hubinta mataqana waqti heshid inaad hubinta mataqana samaysid waa muhiim checking kaas wax badan buu ka anfacayaa wixii inaad mataqana xisaabtaadii ataa inta saxday inta kharaday baadhow ma kala garan ka dhax xisaabtan imtixaan inta sakiinaya waa qiyaasan ka dhax taartid marka hubintaas samee insha Allah taala 10 ku wuxuu noqonayaa 2 god oo loo qaybinayo 5 god wixii inta ka bilaawna waxaan bilaabinaa 3 god oo loo qaybinayo hal 3 god iyo 3 god loo qaybinayo 4 god saas oo bilaabi doonaa insha Allah taala حسابوين بدن ما نوصل سعدا كواسنا إن شاء الله تعالى وجاري دونا